السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. beerka ibni aadanka laba shay ayaa googooya oo burburiya. labadaas waa labada dhakhaatiirtu ay topka ka dhigaan ee ay highlightka ku sameeyaan in beerka ibni aadanka ay googooyaan. ta koobaad ama arrinta koobaad waxa weeyaan waa heaving alcohol. dadka isticmaala alcoholsha ama khamrada culus ee fadhida ee very concentrated ka ah ee aadka u culus, dadka isticmaala beerkoodaasi finally way googoysaa oo way burburisaa. dadka kale waa dadka hepatitis ah ama xanuunka la hepatitis ku hayo viruska, xanuunada ku dhaca beerka ee la yiraahdo hepatitis ku dadka uu hayo haddii aan iyagana laga daweyn beerka marka dambe waxay ka dhigaan mid aan shaqaynaynin oo shaqada ka baxa, ama waxay ku sameeyaan inay marka dambe ay baabi'iyaan oo ay destroy gareeyaan. haddaba waxaa jira kuwo marka labadaa laga reebo beerku wuxuu u baahan yahay nadiifin, oo beerku waxa inta badan dul fuusha toxic iyo substances markaa harmful ah. markan uu u baahan yahay beerku nadiifin waxa la soo qaataa midhaha timirta oo ay ku jiraan macdanaha ay ka mid yihiin phenolic iyo flavonoid iyo macdano kale oo ka qayb qaata beerka inay nadiifiso. timirtu macdanaha ku jira marka ay iskaashadaan ee aad si toos ah u consume karayso ama consumption aad ugu samayso si dheelila ama maalinla, waxa ay keentaa in ay siiso beerka powerful antioxidant ka saaraysa sunta, kana dagaalamaysa suntii beerka dul fuushayna ka clean garaynaysa oo ka nadiifinaysa. marka isticmaalka timirtu waxay kaga jirtaa laymanka ugu sareeya ama topka qaybta top line-ka ugu sareysa ayay kaga jirtaa midhaha clean gareeya ee nadiifiya beerka ibni aadanka. waxa kale oo iyadana la soo qaataa cabitaanka biyaha, in jidhkaagu ahaado jidh hydrated ah oo markasta buuxa. waxa kale oo la soo qaataa beerka inay nadiifiyaan in calooshaada aad socodsiiso. calool socodsiintuna waxay si toos ah uga qayb qaadataan nadiifinta beerka. waxa kale oo nadiifinta beerka ka qayb qaata inuu qofku iska yareeyo duxda, gaar ahaan saliidaha wax lagu shiilo ee wax lagu sameeyo iyo cuntooyinka la shiishiilo saliidaha ka soo raaca, gaar ahaan cuntooyinka street foodska waxa lagu sameeyo meelaha dariiqyada lagu iibiyo, inuu iska yareeyo. kuwaasuna iyaguna toxic bay keenaan oo waxay ku keenaan beerka inuu markaa u damage garoobo ama beer kasta uu ku destroy garoobo, ay ka burburiyaan beerkaagii. saliidaha iyo duxda faraha badan oo qofku iska yareeyaan waxay ka qayb qaadataa beerkii in clean karayntii beerka iyo nadaafadii beerka, iyo in beerku beer cad oo sun iyo dux iyo substances iyo waxaas aan dul fuushanay u noqdo. qodobka ugu dambeeya ee la soo qaatay dhakhaatiirtu soo qaataan waxa weeye sonkorta qeyrin oo si xad dhaaf ah qofku u isticmaalaa waxa ay keentay cayil saayidan. cayilkaasina qofka waxa uu riski u galiyaa in xanuunada macaanka uu khatar u galo. beerkana shaqadiisu waxay ka mid tahay burburinta iyo inuu lysis ku sameeyo duxda iyo sonkorta iyo sunta, intaba waa meesha beerka lagu ridqo. marka in qofku uu sonkor saayida qaato oo xad dhaafa iyaduna uma fiicna miisaankaaga iyo beerkaaga, intaba uma fiicna. intaasi waa haddii aad ka ilaaliso beerkaaga waxa uu ahaan doonaa mid nadaafadii beerka iyo suntii ku tuulmaysay iyo shaqo kabistii ku imanaysay iyo burburkii ku imanayayba ay ka yaraato. waana kuwa ku caawinaya beerkaagu inuu ahaado mid si fiican kugu shaqeeya oo si fiican shaqadiisa u qabsada.
intaasaan ku soo ururinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.